madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdigii ballanay uu hogaaminayay oo ku guda jira socdaalkii shaqo ee ku joogeen cariga Turkiga ayaa soo gaaray magaalada Ankara ee xarunta wadanka Turkiga kadib markii uu ka soo kicitmay magaalada Istanbul oo uu ku sugnaa saacadihii ugu dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdigiisa waxa soo galbiyay oo keenay madaarka magaalada Istanbul gawaari loogu talagalay habmaamuuska madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa halkaasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu qadar yar kadib ka soo ambabaxay magaalada Istanbul ee cariga Turkiga isagoo markaasi soo gaaray magaalada Ankara ee xarunta wadanka Turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa halkan ku qaabilay kuna soo dhaweeyay saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga mas'uuliyiin ka socotay madaxtooyada wadankani iyo saraakiil kale oo ka tirsan xukuumadda dawladda Turkiga madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdigiisa oo ka kooban marwada qaranka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada dalka waxa lagu soo dhaweeyay habmaamuus aan ka yarayn kii lagu qaabilay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga hase yeeshee loo oran karo uu ka sii darajo sareeyay marka la eego gawaarida gaarka ah ee loo qorsheeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa ee soo gaaray magaalada Ankara waxa madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa loo soo galbiyay hoteelka u gaarka ah ee loogu talagalay madaxweynaha Soomaaliland waxaana madaxweynaha Soomaaliland haatan u bilaabmi doona hawlihii rasmiga ah ee shaqo ee uu joogay dalka Turkiga iyadoo ay ugu weyntahay martiqaadka rasmiga ah ee uu madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu ka heleen ra'iisul wasaaraha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maalmaha soo socda ay kulan rasmi ah yeelan doonaan waxa sidoo kale madaxweynaha iyo wafdigiisa la filaya in ay kulamo kala duwan la yeeshaan mas'uuliyiinta kala duwan ee xukuumadda Turkiga iyadoo xubnaha golaha wasiirada Soomaaliland la rajaynayo in ay kulamo kala duwan la yeelan doonaan qaarkood dhigooda wadanka Turkiga Maasim Axmed Cawaale magaalada Ankara ee dalka Turkiga